kulan lagu mideynaya eedaanka masaajidada ku yaala gudaha magaalada Burco ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Togdheer waxaana kulankani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco iyo agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo iyo suduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Togdheer iyagoona ka xog waramay kulankani haddii la iska warhayn waayo idinkana way idin daranta annagana way noo daranta haddii la iska warhayn waayo waxa suurtagal ah siday noogu daran tahay waxa weeye in laynaga dhex kaco dee annaguna cidday naga dhexda kacda aanu idiin aanayno oon dhahdo masaajidka hebel bay ka soo baxeen si wanaagsan waxba idinku sheegan idinka laftiina waa ka jawaab celiseen waxa aynu ka wada hadlaynaa waa dan ina saamaysa ومدن وضلنا مد شخصيات إنه لأن ما وتيجو ده ومد ويقيبته وجبضان ومد هالكلاجة حاجة وإمك ولي أودع النقولين وعلماء دوي. ونحسن ومالين فرحات ويان ومالين رمضان مالين كلنا ونحسن وشان سلويان إن شاء الله تعالى مدحدي كوالكا مدحدي وسارد بين تبوين للشجاع. gabagabadii waxaa isna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Salebaan Cali isagoona soo dhaweeyay kulanka lagu mideynayo eedaanka masaajidada ku yaala gobolka Togdheer waxay ahayd kulan isxog waraysiya iyo xilliga mowsimka khayriga inaan culimada isa soo aragno runtiina ahmiyadda ay culimadu ugu fadhido dalka waa mid aan dawladana ka qarsoonayn oo dowrkeeda ay dawladdu ka qaadato sida Sheekh Maxamed sheegana waxa badan ay ka dhaxeeyaan culimada iyo dawladda haddii xukuumadda iyo culimadu isku xidhmaan shacabkuna wuu ilaashamayaa dawladduna way ilaashamaysaa aadan cabdikariin maxamuud aadan garasho warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco